بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaanu eegi doonaa qaabka aad u dhowrgaraysan lahayd casharada iyo koorsooyinka ku jira Udemy website-ka loo yaqaan Udemy hadaba muxuu yahay Udemy waa website-yada wax laga barto ugu caansan ama ugu horeeya ee wax laga barto ayaa lagu qiyaasaa waxaana ku jira casharo badan oo kala duwan category-giisa haddaad eegtid waxaad arkaysaa business account development ICT personal design marketing lifestyle photography health mid kastina wuxuu ka sii kooban yahay sectiono ay tiyadaad ku dhufatid security network hardware operating system mid kasta saas oo kale ayuu leeyahay hadaba Udemy coursesku mararka qaarkood way jabaan oo qiimo jaban ayaa la siinayaa sida maanta oo kale wuxuu taagan yahay $13 dhowaan buu qiimahan dhamaan doonaa mararka qaarkood wuxuu noqdaa ilaa 100 baa la siiyaa mararka qaarkood hoos baa la soo jabiyaa waqtiyada qaarkood way fiican tahay inuu qofku iska diiwaangeliyo website-kan waxyaabo badan buu ka faa'iideeyaa hadaba waxaa jirta arday badan oo kaarka haysan ama waxyaabaha lagu iibsado chance oo haysta fursad ay kharashkaas kaga bixiyaana aan imika haysan waqtiyada ay u baahan yihiin oo kale inuu qaali yihiin laga yaabo hadaba saad free lagu dhowrgaraysan waxaad tagaysaa website-ka la yiraahdo free course site marka uu soo baxaya waxay isaga automatically isu geeyay markuu sidan kugu soo baxo website-kani waxaad arkaysaa casharadii oo halkan ku jira artificial intelligence javascript waa kuwan casharadii halkan soo taxan ilaa hoosna waa u sii socdaan dhinacana waad ka heli kartaa casharada sidoo kale kuwaas waxaysiis click baad siin kartaa hadaba waa kuwan intii laga waa kuwan aad ka dhowrgaraysan kartiin waxaad doonaysid personal development hadda nimanka doorano mararka qaarkood xaysiiskeed buu ku weydiinayaa inuu ku soo dhigayo laakiin waad iska xidhi kartaa toos buuna ku geenayaa waxyaabii la xidhiidhay halkaad soo dooratay bitcoin iyo cyber kuwan casharadii oo kale waxaad soo dooranaysaa design oo kale waxyaabii design-ka la xidhiidhay oo dhan ayuu halkan ku soo dhigayaa waa kan Photoshop After Effects koorsiyadii la xidhiidhay designs-ka dhan ayuu ku soo doorayaa markaad doonaysid inaad course-kan dhowrgaraysatid waad ku dul dhufanaysaa marka link-kii uu ku geeyo waa kan cashirkii uu ku sheegay information-kiisii iyo cashirka wuxuu qaadan doono iyo cidda loogu talagalay information-kiisa dhammaystiran inta GB uu yahay cidda dhigaysa halkan sidoo kale wuxuu ku soo dhigayaa course-kan Udemy halkuu kaga jiray waa course-kan haddaan imika tigno kale waa kan course-ku $14 baa la siinayaa maanta hadaba course-ka halkaa yar dusheeda waxaad ku arkaysaa markaad hoos u socotid marna caawinadid waxaad ku arkaysaa download-ka markaad ku dhufatid link-yan kale ayuu kuu furayaa linkana okay click continuous baad oranaysaa xaysiisyadani waxaan baa inaad aragtid loogu talagalay oo mudeer buu kuu qabanayaa saad u dhowrgaraysan kartid waa course-kii halkaa inooga furmay hadaba waa course-kii halkaa inooga soo degay course-kii oo dhammaystiran imika inooga soo degin ee waxay noo soo degay Utran files-kani waa ka ku ogolaanaya inaad course-kii oo dhan hal mar soo dejisato oo website-yo badan waxay ku siinayaan Utran files-ka ayay ku siinayaan markaad fayl waaweyn soo dejinayso kale marka in badan inaad aragtaa laga yaabaa course soo dejisay oo sidaa kaan noqday adarkata kani course-kii maahin laakiin waxaan soo dejisanaynaa waxaad u baahan tahay inaad soo dejisatid Utran waliba for webs-ka soo Utran oo web ah waa kan linka ugu sarreeya isna ku soo baxaya labadan version baad soo dejisan kartaa inaad application iyo desktop application oo kan cusub imika soo kordhiyay kana faastisan mid kasta option-kiisa ayuu ku sheegayaa kan waa application waa la soo degaysaa application-kan hore u soo dejiyay markuu ku dhamaado application-kan waan install garanaysaa application-ka markaad install garaysid aad ku duubtid computer-kaaga kadib waxaad soo furanaysaa faylkii Utran-ka ahaa ee ku soo degay ayaad open leedahay halkan ayuu kaaga furayaa sidan ayuu kugu soo dhigayaa waa kan hadaba casharadii iyo chapter-radii iyo wax inuu ka koobnaa halkan baad ka arkaysaa okay aad badan kartaa haddaad doontid inuu pop-up-kan markasta kaa daayo don't show waad oran kartaa marka labaadna kuma weydiin rabo course-kii uu bilaabmay markuu soo degana sidan buu kuu noqonayaa
halkan baad ka booqan kartaa oo faylkii kusoo degay muddo yar bay qaadanaysaa iminkan 2 saacadood buu qaadanayaa fayl wuxuu ahaa 6 GB weeye xoogaa 2 saacadood qaadanaysaa internetkaagana wuu ku xidhan yahay sidaas ayaa loola soo degaa cashirka haddaad ka heshay ama cashiro kaloo noocana si aad ula socotid qaybaha dambe fadlan baahi oo cashiradaadana la wadaag dadka halkan buu faylkii kusoo degtay kolba intii kusoo degtana waad sii daawan kartaa hadduu internetkaagu aada culus yaho kale waad sii daawan kartaa sidaas ayaana loola soo degaa wassalaamu calaykum